السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان dadweynaha Soomaalida ee bajecel inay bartaan luqadda afka Ingiriisiga meel walba aad ku nooshihiin ku soo dhawaada cashar kale oo gaaban iyo aflax school casharkan ayaa waxa uu yahay cashar aad u hooseeya oo cashar bilow ah oo aan ugu talagalay dadka bilowga ah ee luqadda afka Ingiriisiga erayada aan ku baran doono waxa weeye qaabka mararka qaarkood wax loo weydiiyo dadka ama loogu jawaabo adigoo isticmaalaya ereyga is there or are there waa labada erey iyo sida ay jawaabtoodu ay noqonayso haddaba marka ugu horeysa aynu tusaale ahaan ka soo qaadno sidee qof loo weydiiyaa in ay miisas yaalaan fasalkooda ama in ay kuraasi taalo gurigooda ama in ay gogol taalo gurigiisa iyo haddii ay taalaba Are there a desks in your classroom? Miisas ma leeyihiin fasalkaaga? Miisas ma yaalaan fasalkaaga? Miisas ma yaalaan. Waa jamac. Miisas waxaa ka hadlaysaa hal miis wax ka badan. Miisas ma yaalaan. Marka waxaad isticmaashay are waxaa loo isticmaalaa wixii jamac ah waxaana ku muujinaya inay waxaasi ay jamac yihiin desks waa miisas ayaad ka hadashay are there desks miisas ma yaalaan fasalkaaga miisas ma yaalaan fasalkaaga jawaabta oo la soo gaabiyey haddaad doonteed qaab dheerna waad uga jawaabi kartaa qaab gaabanna waad uga jawaabi kartaa qaabka gaaban waxay noqonaysaa yes there are hayo way yaalaan okay qaabka marka waxa weeye sidee ay kala yihiin kuwa jamaca ah iyo kuwa nafarka ah kamada there xagga weeye ama meeshaas ama halka okay there are waxa halka yaala ama waxa halka jira bay noqon kartaa there is halka waxa yaala ama halka waxa jira tusaale aynu gelino there are no books or there are books waxa yaala buugaag ama wax buugaaga ma yaalaan waxa yaala buugaag ama wax buugaaga ma yaalaan there is a book waxa yaala book faraqa u dhaxeeya waxa weeye ereyga ficil kaabaha ah ee la isticmaalay are ama ista there are no books there is a book jumlad si dhammaystiran aynu ka dhigno there is no book on the table there is no book wax buuga there is no book wax buuga oo saaran ma jiraan on the table there are no books on the table wax buugaaga oo miiska saaran ma jiraan su'aal see loogu weydiin karaa are there any books on the desk wax buugaaga oo saaran ma jiraan miiska aynu ka soo qaadna markaa sentenceyaal kale is there a television in your classroom baa la hormariyey sababta ista loo isticmaalayna waxa weeye waxa laga hadlaya ayaa wuxuu yahay television oo waa hal television kaliya is there a ereyga kale ee waxay muujisanaysaa waxa laga hadlaya inuu yahay hal wax is there a television in your classroom ma wax telefishina ma television ayaa yaala fasalkaaga ma wax telefishina ayaa yaala fasalkaaga yes there is hayo wuu yaalaa are there women in your classroom ma jiraan haween dhigta fasalkaaga are there women in your classroom ma jiraan haween dhigta galaaskaaga ama ma dumar ayaa ku jira fasalkaaga yes there are hayo way jiraan oo dumar way dhigtaan fasalka marka there tii waxaa lala isticmaalay there are waxaa lala isticmaalay are oo ah wax jamac ka dhigaya is there
Is there a computer in your classroom? Is there ma waxaa yaala computer miyaa yaala in your classroom fasalkaaga? Ma computer ayaa yaala fasalkaaga? Ma computer ayaa yaala fasalkaaga? waxaa la isticmaalay ereyga markan is keliya. Is there a computer in your classroom? ma waxaa yaala computer fasalkaaga? marka is ayaa lala isticmaalay maadaama waxa laga hadlayo ay uu yahay computer oo ah hal computer keliya. ma computer ayaa yaala fasalkaaga? haa wuu yaal. ta ku xigta aanu baranayno waxa weeye are there lot of cars in your neighborhood? Are there ma meeshaasi ma waxaa yaala lot of cars baabuur badan in your neighborhood? xaafadda aad degan tahay ma wax baabuur badan leba oo ma baabuur badan baa joogta? ma baabuur badan ayaa taal xaafadda? ma baabuur badan ayaa joogta? aynu nidhaahno baabuur badan ayaa joogta xaafadaada ama xaafadahaaga ama xaafadaha deriskaaga ah hadba sida ay noqoto. ma baabuur badan ayaa joogta xaafadaha deriskaaga ama xaafadaada ayaa xaafadaada. oo ta ku xigta oo aanu baranayno waxa weeye ereyga jumlada kaliya aan gelinayno waxa weeye are there a noisy children? ma caruur buuq badan ayaa joogta? no xaafadaada maaha tan. waa oran kartaa xaafadaada dabcan hadday xaafadda caruur qaylo badan joogaan. are there sometimes noisy children in your classroom? Are there sometimes noisy children in your classroom? mararka qaarkood ma waxaa jira caruur qaylo badan miyaa jirta fasalkaaga? ma caruur qaylo badan ayaa mararka qaarkood fasalkaaga joogta ama dhigata? laakiin halkan joogta bay noqonaysaa. ma caruur qaylo badan ayaa mararka qaarkood joogta fasalkaaga? hadba soomaaliga waxay ku xiran tahay sida ereyada u kala hormarisid. yes there are. hayo way joogaan, caruurtaas way jiraan. ereyada aanu ka baran karno casharkan maanta waxaa ka mid ah ereyga desk oo ah miis. classroom waa fasalka. your waxaa loo isticmaalaa waxa aad adigu leedahay. ereyga jumlada iyo ereyga women waa marka ay dumar badan yihiin. womanna waa marka ay hal qof oo dumara ay tahay. ereyada kale waxaa ka mid ah noisy oo ah buuqa badan. sometimes waa ereyga waa mararka qaarkood. lot of cars baabuur badan. neighbor waxaa la yidhaahdaa xaafadda deriska. neighborhoodna waa xaafadaada. is there ereyga is there waxaa loo isticmaalaa marka aad ka hadlaysid nafar ama singular oo ah hal. ma yaal ama ma jiraan. is there a pen in your pocket? qalinkaaga ma ku jiraa? qalin jeebkaaga ma ku jiraa? yes there is. hayo wuu ku jiraa. is there a man standing outside? ma nin baa dibadda taagan? yes there is a man standing outside. nin baa dibadda taagan. is there waxaa loo isticmaalaa keliya markaa waxa nafarka. are there-na waxaa loo isticmaalaa baanu niri wixii oo jamaca oo badan. are there waa plural, waa ma yaalaan ama ma jiraan. yes there haddaad nafar aad ka hadlaysid waxaad odhanaysaa yes there is. hayo wuu jiraa. haddii aad jamac aad ka hadlaysidna waxaad odhanaysaa haddaad singular aad ka hadlaysid waa yes there is. haddii aad plural ka hadlaysidna yes there are. yes there are. yes there are. hayo way jiraan waa plural weeye. hayo way jiraan. haddaad diidan tahay ama negative ay tahay see odhanaysaa? waxaad odhanaysaa no there is not iyo no there are not. ayadana markaa waxaa u kala bedelaysaa
ereyga not gadaal baad ka raacinaysaa oo short formatka ah qaabka ayuu la soo gaabiyey ah. Okay, no there are not, maya ma jiraan. casharkayga maanta intaasuu ku edel yahay. waxaan rabaa inaad dib ugu noqotid akhrisid wixii su-aalana waad isoo weydiin kartaa. haddii aad jeceshahay inaad casharo gaara aad qaadatidna ha moogaanin inaad nagala soo xiriirtid emailkayaga. waxaanan barnaamijkan ugu talagalnay inaanu dadka soomaalida ee ku cusub wadamada qurbaha qaar ahaan Mareykanka ku caawino, sidaasoo kalena dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay ka faa'iideysan karaan. intaanu barnaamijkan ku xiga aan ku kulmi doono waa Aflax School oo idin leh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.